diwadbaxan oo ahaa mid aan loo kala harin caruur iyo dad waaweyn wuxuu ahaa mid lagu dalbanayay in cadaaladda la hor keeno ruuxii ka dambeeyay dilka ex wasiir Cabbaas Siraaji. Banaanbaxayaashu waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ku aadan in madaxda dalka Soomaaliya ay cadaaladda hor keenaan askarigii ka dambeeyay dilka ex xildhibaan Cabbaas Siraaji. qaar ka mid ah diwadbaxayaasha oo ay ku jiraan ehelada marxuun ex xildhibaan Cabbaas Siraaji ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka dhaweeyaan ballanqaadyadii hore ee u sameeyeen oo ahaa in cadaalad dalka ay ku maamulayaan. lan wasiir 20 jara lidili lankii dili oo dable in qalan ya hadana faataha hal nin dilay ka tuugta maahayn waluna aqbal korno ma wasiirkan dhalinyarada xildhibaan oo gees aqoon-yahan maala yani liin dili oo wulina lankii dili lan useen qalan oo lankii usadilina liin aarahan يا جيك هم بنام بحن جيك كلية ولا كتاير ولا هاي أما عدالة كلاسا لكن كويسن ولا جيك رأي لما قضب تهلني شال صار دولة أنت هذا تقابل كله كله يتو صومالي وين نعوس كلته قاي بنا هاي قف كيسي مكان أو عدالة وباهنا ما كستي وحنا أقباهنا ما أنت الدولة ماشى دولة معمل قبلات كان أقباهنا دولة اللي حن أقباهنا انت الصومالي ابان اوغا باهنا cadaalad rabi in cadaalad aan helo. wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha koonfur galbeed Soomaaliya Marwo Nadiifo Xaaji Carmi iyo xildhibaanad Shukri Bashiir oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo la hadlayay banaanbaxayaashu waxay fariin u direen madaxda dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya. inta geek waliba in iska koynay shuurtana ka muujihayna walaalkana wasiirkii hore Cabbaas Sheekh Siraaji in lanki dilin taasna waliba faraase ayad quraan ee munazzal ee lan farmaajo leerow ilan oo khayr leerow lan ku tuugo wasiir iyo mayleeray insha gudoomiye baarlamaanka majara حق ولي بوالن كعدالة إن لهم فلا والكلام أنتم سرنا مله هابون أنا معمول كونفور قلبات شعب وينها كونفور قلبات ولي بديار أنا أن عدالة هلنا هدي الهلا وباقي قدام بيوكان ما والله توجو ما والله بريو ولي بس إن شاء الله إن عدالة العسارة تيرك لا استاجي عباس راجل الشيء ده بدنا والدلي وان ويدلي واي لو هستا واي هلا نوشيغو warcada reeg waliba fayle warcada shalqaadade sababta loo haysto maxay tahay ruuxii ka dambeeyay dilka wasiir Cabbaas Siraaji oo wali aan cadaalad la hor keenin ayaa wali ah mid dadku ay ka war dhoorayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo go'aanka ay ka qaadan doonaan. Ali Ilyas Cabdullaahi, Honkebel TV, magaalada Baydhabo.